maamulka gobolka Awdal kan degmada Boorame ay weeliyaan laamaha ammaanka gobolka Awdal ayaa maanta duleedka magaalada Boorame deegaanka Garyacawl kala wareegay ciidamada laanta socdaalka dalka Itoobiya degmada Awbari gaari la sheegay inuu maalintii shalay ahayd uu si khadan u galay xuduudka dalka Itoobiya gaarigaasi ayaa waxa la sheegay in lahayd shirkadda isgaarsiinta Telesom ee gobolka Awdal mas'uuliyiinta warbaahinta ku halayay duleedka magaalada Boorame deegaanka Garyacawl ayaa warbaahinta uga warbixiyay gaarigaasi habkii ay u qabteen ciidamada laanta socdaalka dalka Itoobiya iyagoo si qoto dheer uga waramay xiriirka soo jireen ee ka dhaxeeya labada dal ee Itoobiya iyo Somaliland waa kuwan barasaabka gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax duqa degmada Boorame Maxamed Xuseen Meerane oo ka warbixinaya gaarigaasi intii waxaan mahad gaar u celinaa maamulka gobolka oo si hagar la'aan u hawlgalay gaarigaas oo shaqeynaya komishanka doorashooyinka iyo diiwaangelinta runtii ilaa xalay aan ka seexan gudoomiyaha gobolka dadaal badan oo galay ilaaqaad ka dhaxeeya labada gobol oo aad u wanaagsan Itoobiya iyo Somaliland oo runtii wax lagu faanaa maanta inay dalka jirto xidhiidh diblomaasiyadeed oo ka dhaxeeya labada dal runtii dadaal badan oo galay gobolka aad ayaan ugu mahadnaqaynaa dawladda Somaliland iyo dawladda Itoobiya waxaan leenahay horta dawladda Itoobiya waan uga mahad celinaynaa cilaaqaadka wanaagsan iyo dib u soo celinta gaadiidka lumay iyo dib u soo celisay ee xadka galay waxaan ka tirsanaynaa jarnimo wanaagsan aad baan sida maamulka gobolka uga hawlgalayna hawsha uga tixgelinayna uga mahad celinayna anagoo ah maamulkii degmada runtii ilaahay baa mahad leh waxaan mar labaad u mahadnaqayaa maamulka Soomaalida ee dawladda deegaanka Itoobiya khaasatan degmada Awbari oo si wanaagsan looga hawlgashay sidii gaariga loo soo celin lahaa geesta kale gudoomiyaha komishanka gobolka Awdal ee barasaabka gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax ay waxay ugu baaqeen bulshada ku dhaqan magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal iyo guud ahaan gobolka Awdal inay qaataan isdiiwaangelinta codbixinta iyo kaarka muwaadinka Somaliland waxaan farayaa dhammaan gobolka iyo degmooyinka uu ka kooban yahay in dadweynuhu u soo baxaan diiwaangelinta oo si hufan runtii ay wax allaala wixii su'aal ay ka qabaan inay maamulka ugu yimaadaan halka ugu dhow way ka helayaan marka dadku kaararkooda ha qaataan ha isdiiwaangeliyaan baa leeyahay teena maxalliga iyo tafoodka labadaba in la qaato ayaan runtii kaga faa'iideysanayaa jaaniskan baabuurkan aad arkaysaan ee inaga dambeeya oo u shaqeynayay sidii birihii lagu rakibi lahaa internetka goobaha gaar ahaan degmada Boorame ayaa shalay si khalad ah wuxuu galay xuduudda eeriyada cunaqabad marka waxa qabtay qolada burinka ee xagga Itoobiya oo birra loo gudbiyay kullay maamulka gobolku aad buu uga hawlgalay hawshaas sidaad arkaysaan 24 saacadood in ka yar ayaa baabuurkii lagu soo celiyay marka waan u mahadnaqaynaa mar kale madaxda Itoobiya iyo madaxda gobolka iyo degmada waa Mustafa Caraale telefishinka caalamiga Somali News magaalada Boorame.